sheekooyin badan oo qoslaad waxaa ka samaysay gaalkacyo maxaad gaalkacyo sheekooyinkeeda ku dooratay laba xilliyood la gaalkacyo joogi hal xilin leh soo ku joogi kara tawaakad wuxuu yidhi waagaa madaxa ku furtaa war nasiib yidhi wana baasha ma cunta qanis iska daa war nasiib waa cunaan ugu sii ninka tawaakadii buu laqay reer burcaha askariga yarka obiga fadhiya meesha askarta wax ku qora waa reer beedhabo ninka yidhi maxaa tawaakan sii asaga tawaakadii ka go'da qabra bayax waxay u badan yihiin magaalada Minnesota macnaha gobolka Minnesota magaalada Minneapolis u badan yihiin sheekooyin badan ka sameeyeen nimankan qaarkood baadiyaha laga keenay marka skin milk iyo 2% ayaa yaali waa fiirshaxay marka biyay ogyihiin wanaga dhadhami wiircaana labaad konton caagay fureen nimankii waxaa jirtay joog ah ka samaysay warbaahinta Soomaalida Mareykanka gaar ahaan nin la yiraahdo Deeq Darajo oo wariyo weyn oo rugcadaa ah wariyaashii Mareykanka marka arkeen dhagax la tuuraayo iyo meelihii la gubaayo way carareen dadka oh my god oh Jesus oh my god kuwaashay Deeq Darajo South Africa ka yimid ninna xamaba ahamba waxaan ka daran buu soo arkay iska dhaxar gabadhii waxaan idhi adoo jirkaaga ganacsanay weligaa ma lagu qabto maxaa jirkaaga adoo ganacsanay jawaabtii ugu dambaysa waxayd waryur baa kori yur daqayo war haddaanay maxay caynaysaa muuse bixi wuxuu yidhi muusow mataqaanaa ma imaan kara hargeysa waala muuse wuxuu yidhi kula meeraystaade wuxuu kala ha farmaajo wuxuu yidhi anaa tayada haystaayo mataqaanaa villa Soomaaliya kama baxabo odaga axmedow wuxuu yidhi farmaajo marka hore iga qabo mataqaanaa galmudug hadduu ka dhaco mataqaanaa baarlamaanka dagaal ka dhaco kulli aagir dabalaa bay jaakadaha ku wataan puntland toorey wataan kulli cabdiweli laba toorey buu watay toorey eber la iskaga dhigaya camarna waa artay nimankii buur kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamij aanu jecelnahay inaan bulshada Soomaaliyeed la qaybsano muddo fara badan aadna weydiinayseen annagoo tixgelinayna codsigiina sharfan ayaan markii ugu horeysay Ilaahay fadligiis waxaanu caawa is hor fadhinaa walaalkay saaxiibkay nin khiyaara bulshada Soomaaliyeed magac iyo sumcad iyo haybad ku leh bulshadu intay ku mashquushay waxyaalaha kale isagu wuxuu isku dayaa dadka inuu si kaftana ama sheeka uu wax ugu sheego asagoo caqligooda garaadkooda la hadlaya isla mar ahaantaasna entertainment ahaan ugu soo gudbinaya waxa afka qalaad lagu dhaho entertainment and informative macluumaad iyo fikir iyo wacyigelin uu ku siinayaa uuna kaga qosla siinayaa waana sida ugu sahlan oo qofku xoga dhici karto waana haybad Ilaahay uu siiyey haddii aan idiin soo koobo qofkan qofku yahay uma baahna in iskiin baro waxaan iska horfadhinaa True Story iyo Cali Mataan saaxiibkay oo jooga dalka Mareykanka aniguna Ingiriiskan jooga waxaan jecelnahay xoogaa yar inaan sheekaysano sheekooyin fara badan oo uu sameeyey oo Soomaalida aad u jeceshahay iyo kuwo xiiso leh oo hor laba waanu eegi doonaa waxaan meesha ka maqnayn waxyaalo su'aal idinku jeceshiin aad weydiisaan iyo kuwa anagu jecelnahay su'aal inaan weydiino True Story Mataan ayaanu weydiin doonaa marka horeysa balan soo dhaweeyo mataan aad iyo aad baan ku soo dhaweynaya waa masanta waa gartay sharaf iyo karaamay noo tahay inaan is helnay ugu dambeyntii nin aad iyo aad u mashquul badan baa tahay maasha Allah Allah karaameeyo soo dhawow marka horeysa bal waxaa noogaga dhacdaa sheekadan True Story ku halqabsatid shaarkana kuugu qoran xageed ka keentay maxay samcanadeedu wallahi True Story macna badan ku fadhidaa haddaan sharaxana ilaa berri waa wadi karnaa laakiin waa soo gaabinaya waxaa jira dad badan mataqaanaa oo mataqaanaa sheekooyin badan sheega ama riwaayado sameeya marka anigu waxaan isku taxallujiyey sheekooyinka runta oo dhaca inaan joog ka sameeyo dadka aan ka soo qaatana waa dad mataqaanaa aan ku kalsoonahay oo mataqaanaa sharaf leh ama dad abwaanaa ama dad mataqaanaa wariyaala ama dad wadaadaa qasooyinkaasaan ka soo qaataa waxaan isku dayaa inaan joog ka sameeyo dadka Soomaalida waa aragtay stress badan baa jira wadamada qurbaha iyo wadankeeba inaan ka qosliyo True Story waxa waaye waa sheekooyin run oo dhacay oo ama aniga ku dhacay ama dad asxaabna ku dhacay
waa gartay markaad tiraahdid markaa sheeke ka sheekaysidoo dadku ay qosol la daataan baa waxaad tirahdaa waa true story markaasay kasii daraan marka ma ku rumaysanayaan mise kuma rumaysanayaan see u fahantay adigu والله اني ددك قاركود بو علي ayaga taala laakiin 95% way rumaysanayaan sababta wax dhacay ama wax society ku dhacay ka aan sheega ama nin saaxiibka ku dhacay oo goobta fadhiya waa gartay inta badan waxaa ku halqabsataa saaxiibada gaar ahaan bahda sportska maxaad si gaara bahda sportska u target garaysaa cabdixafiidow sportsku waa waxyaalaha keliya ummadda isu keeni kara waxyaalaha uga bixi karno qabiilka waxyaalaha uga bixi karno mataqaanaa nacaybka marka bahda sportskuna nin kastaa ku jira oo gobol kasta ka yimid nin kastoo background gooniga leh waana dad isku duuban oo walaalaha marka cogdan naguma jirto waana kaftami karnaa wixii aan sheegnana waa wax society-ga dhan quseeya marka bahda sportska lagama maarmo waxaad i xasuusisay aan ogahay inaad si fiican u xasuusan tahay berisamaadkii iyo ciyaarihii gobollada sida laysku dhex geli jiray soo stadiumku u shidnaan jiray inay dadka gobollada ka yimaado ciyaartooyda ay dad kaloo soomaaliya la seexan jireen lasoo dhoweyn jiray cugdad iyo qabyaalad iyo qurun aysan jirinin ayaan xasuustaa arrimahaas maxaa ka xasuustaa waagii hore والله runta horta waa arrimahaas 1972 in la bilaabo umanayo 72 ciyaaraha gobollada midkood high school baan dhiganahay gurigeena waxaa imaan jiray niman kismaayo laga keeno walaalka oo hadda Holland ku nool ayaa reer kismaayo ah dhalinyaradii gurigeena seexan jirtay ilaa hadda walaalaan waa 73 ilaa hadda marka masha Allah ra'yi fiican buu ahaa intay dadka hoteelo la geyn lahaa ama la geyn lahaa si bulshada isu dhex gasho oo dadku isu bartaan ayay ahayd arrin wanaagsan bay arrintaas aad iyo aad waxaa jirta munaasabadaha lagugu arko aad bay u kooban yihiin una yar yihiin inta badanna waxay u badan yihiin waxyaalaha soomaali weyn iyo danta guud ah kuwa qoysaska iyo qabyaaladda iyo calamada xaafadaha ku salaysan inta badan laguma arko maxaad ku dooratay kuwa soomaali weynta ka dhexeeya waa su'aal aad u fiican horta waana mahadsantahay su-aashiisa inay weydiisid waxa weeye taas u doortay soomaalida haddii meel wax laga qabanayo soomaaliya dhan ha ahaato ama ceel la qodaayo ama isbitaal la dhisaayo ama carruur wax loo qabanayo diyaar baan u ah inaan ka qayb qaato oo fundraise loo samaynayo 95% waxaan tagaa ciyaaruhuna waan kuu sheega waa dadka wax isu keeni kara true story aan kuu sheegayaa dad badan dadku qabiil bay u kala baxaan dad yimid oo yiri mataano halkaas ka soo jeedaa kaalay musulmaan samaynayna waxaan taageeraynaa qoladaas waa diidaa aniga runtii xamaraan ka imid xamaraan kusoo koray mataqaanaa dadka xamarna marka dadka wax iga sheegaan inay movie ii sheegaan amaleeya macnaha waxaan dhici karin dadka la soo kale dad fiican bay ahaayeen dad wanaagsan soomaali ahayd meel ilaahayna aniga horta runtii waa ugu mahadcelinayaa dhibaato ima tusin qabiil wax liguma yeelin waxaan u doortay ama dadka wax loo qabanayo true story aan kuu sheegaya isbitaal baa wax laga dhisaayo werwer weligay ma maqal laakiin gabdhaha ii yimid hadda ka hor oo la yiri islaamaha soomaalida u artay ilmaha waxay u dhintaan infant mortality waxa la yidhaahdo umul raactaa lagu leeyahay marka oxygen la'aan u dhintaan waxay u dhintaan nafaqa darro waxaan tegay maxayd magaalada siyaara habeenkii lagu casuumay $85,000 meesha loogu aruuriyey waa waxyaalaha farxad ummad soomaaliya wax loo qabanayo marka meel kastoo laga qabanayo cabdi oo diyaar baan u aniga aad iyo aad saaxiib waa wax lagu farxo weeye wixii wax dhisaya wixii horumar wax gaarsiinaya in maaragtay la isugu tago oo la taageero meeshay doontaba ahaatee maxaa yeelay saad u sheegtayba hooyo soomaaliyeed oo dhiig bixi lahayd baan sabab u noqoteen in $85,000 hal hamin la raisgareeyo wax lagu faaro adiga iyo intii ka qayb qaadateen uga mahad celinaa meeshay doontaba ahaato hagaag sheekooyin badan oo qosolaad waxaa ka samaysay gaalkacyo maxaad gaalkacyo sheekooyinkeeda ku dooratay maxaa kamid a sheekooyinkaa samaysaysa والله أنا قال كعيو أرتا وحواي مقالين واحد عرض بدن ويا سومالي قال كعيو مقدش يو أمالها عدتك جوك اللي قسم هي ما تقنا دت جوك قادن كرا لا وحلا قسم هي قال كعيو عون دورتي رونهانتي وأمال قال كعيو الآن جوك لان مسوعناي قلادات كي قلان وقسم هي
marka hadda kor waxaa la yidhi nin baa gaalkacyo joogay ninka marka xiniin baa laga qabtay xiniintii baa isbitaal la geeyey yaa loo sheegay baa xiniintii baa laga saaray marka ninka biskooda loo sheegay laga bixiyaa la yidhi la soco ninka waa anigoo mataqaanaa 2 xilliyood la gaalkacyo joogi hal xilin leh soo ku joogi kara marka gaalkacyo waa meesha jooga ku baxo waayo waana meelaha ugu fiican saasaan u doortay waa gartay intaana u gudbinin meelaha kale ninka halxiniyo ku joogi waay gaalkacyo maxaad kaloo ka samaysay gaalkacyo oo aad xasuusataa wallahi gaalkacyo horta waxyaalo badan baan ka sameeyey laakiin hadda wax badan ma ka xasuusan kara laakiin gaalkacyo la'aanteed jooga ma socon karo marka waxaad kaloo ka hadashay burco gobolka ragga ayada wax ka samaysay miyaa jira waa jiraan trustoran ku sheegaya burco ka dhacday ninaan saaxiib nahay taas weli ma gelin laakiin adaa taas macnaha wareysanka ku sheegaya yarka reer beledweyne ah wuxuu waday baabuurkii mataqaanaa baasiinka qaadiyay booyadihii waa xilligii dowladdii kacaan ninkaa marka baabuur soo qaaday burca baabuurtii diiselka asagoo diiselka shubaayo gaariga dhinaciisa uu mataqaanaa qaad buu soo qaatay asagoo iska qayilaa nin racaa u yimid warna adeer waan kula qayilo yiri war fariisuu yiri qaadkiibu ninkii siiyey ninkii markuu qaad ka dhargay galabta casarka tahay uu rabo yarkii ilaa ninkan waa nin reer koonfur tubaako gashtay maxay tahay baashan tubaako waa yiri maxay tartaa tubaakada wuxuu yiri waagaa madaxay kuu furtaa war nasiib yiri wana baashan ma cunta qaadis iska daa war nasiib waa cunan wuu siiyey ninkii tubaakadii buu laqay reer burcaha tubaakaa laqay waa iska tufaa saaxiibka waa ma tagay raashinkii iyo wixii hadhow buu askar station police ku dhigay meesha dadku yiri ninkan reer koonfurka sun buu siiyey kulaha ninka waa la askariga yarka obiga fadhiya meesha askarta wax ku qora waa reer beedhabo ninka yiri maxaa tubaakan siiyey asaga tubaakadii ka go'an 2 weeks tubaaka meeli ninka ku xiraabay yiri anaa jeelka dhigaya iska tag ninka markuu tago yiri kan tubaakada ku sii deey askariga waa tubaakada ka qaatay taasna burca ka dhacday waa gartay waa gartay haddaa aadno soomaali galbeed iyo qabri bayax ayada ka waran sheekooyinka ka samaysay wallahi qabri bayacni horta dhulkan maraykan magaalada jooga atlanta iyo mataqaana minneapolis iyo columbus ohio meelaha soomaalida ku badanta waa la soo wada qaxay adduunyada waa artay waayihii soomaalida dagaaladii dhaceen iyo wixii iyo soomaalidii qabri bayax waxay u badan yihiin magaalada minnesota macnaha gobolka minnesota magaalada minneapolis u badan yihiin sheekooyin badan bay ka sameeyeen nimankan qaarkood baadiyaha laga keenay niman magaalo soo maray ma ahan waxaa waaye marka waxyaalo badan bay sameeyeen sheekadii waxaa ka mid ahayd kuwii allaan lagu soo dejiyey oo caano doontay korogarka tegey korogarka supermarket waaye meesha markaa tagana caanihii bay $10 bay wateen marka caanaha soomaalida waxay cabtaa kuwa mataqaana whole milka caanaha dhana oon laga saarin mataqaana nuxurka iyo marka skim milk iyo 2% ayaa yaallay waa filshaan caanihii marka biyay ogyihiin waa naga dhadhami yiri caanaha 50 caagay fureen nimankii waa dhigay sacbi ku shubtaan waa cabaan dan ninkii supervisorka korka maraykan waa aragtay ingiriiska iyo caano la furayaa gadanaayo caanihii qaataa la yidhi hameen markay soo waceen warantaan oo dhibaataan haysta 250 baan ka dhiiba nimankii marka qabri bayac dhibaatadooda waa badan tahay cabdiyo caanihii geela xorada lagu dhadhaminaya umalayeen caanihii haa gaawaa lagu shubi jiray wala gaawaa ku jiray waa garatay dadku markay kula kaftamayaan gudacaydee waxay dhahaan mataa waa nin dadka ka qoslaysiyo ma shaqaysto inaad habeenay maalin shaqaysa dadkaan ogeyn maxaa ku oran lahayd oo jooga ka samaysa wallahi nin horta dadkii yaqaana waa yaqaaneen saaxiibada badan baa jooga laba nin oo zaciima saaxiibada hadda ila jooga oo muxudiin cawle oo ku soo dhaweynaya fiidiyahayga iyo saadaad maxamuud oo dhalinyaro mataa waxay u malayn oday ka dhamaatay inuu ay doolashaan dhalin karaa iska yar teestooyina ka careeyay jamcadii taasna waa true story ayada nafteeda marka maraykan inaan shaqaysanina waxaa waaye waa adagta suugu noolaa aad iyo aad hal bil baaga muddo ma noqon 82 waddankaan imid ilaa hadda marka ragga yaqaana waa yaqaanin masha allah markay ku dacaydeenay saas dhahan laakiin aabba sharaf loo shaqaysto oo hawlkar inaad tahay dadka dhan ogyihiin
in yar maana markay ku ducaadeen saas dhahan waxaa jirtay joog ah ka samaysay warbaahinta soomaalida maraykanka gaar ahaan nin la yidhaahdo deeq darajo oo wariyo weyn oo rugcadaa ah markii uu geeriyooday ama la dilay ninkii George Floyd maxay ku saabsaneed sheekadaas waxay ahayd cabdiow waa true story ayada lafteeda markii George Floyd lagu dilay magaalada Minneapolis Soomaali badan baa ka qayb gashay mudaharaad dad baa wax bilaqaystay xataa waxba true story waa xornaaye wariyaashii maraykanka markay arkeen dhagax la tuuraayo iyo meelihii la gubaayo way carareen dadka oh my god oh Jesus oh my god kuwaashay deeq darajo South Africa ka yimid ninna xamaba ahaanba waxaan ka daran buu soo arkay wuu iska dhex cararayo asaga duubaayo wixii dhanbo waxay noqotay wariyaashii waaweynaayo CNN iyo Fox News iyo NBC da iyo deeq darajo klibkiisa inay qaataan ayagu waa carareen marka isaga caadi ahayd uu la qabsaday asaga caadi ahayd waxba lama ahanbo ka daran buu inna ama deeq darajo marka dukaamadii Soomaalida South Africa la jabsanayo kasoo ka yimid wixii South Africa la jabsanayo dadka xabadda lagu dhifanayo meedka la guraayo wixii ka yimid dhagax la tuurayo xaalada marka ayaduna waa true story ninka waxa weeye waxa laga qaatay muuqaaladiisa oo dhan baa la qaatay waa gartay intaad joogtay maraykanka muddo badan baad joogtay 30 sano kor u dhaaftay almost waxyaalihii kuugu qosolka badnaa aad joogga ka samaysay Soomaalida imaata ama isla qabsi waaga maxaa ka mid ah nolosha wallahi wixii igu qabsi badnaa waxay ahayd waxa lama qarsho Maraykan runtaan la sheegaa Maraykanka Soomaalida waa ka duwan yahay waxay ahayd cabdi marka aniga ko turjumaan baa waxaan ka ahaa maxkamadaha tii ugu cadadna waxay ahayd marka maxkamad baa gabar la keenay Soomaaliya gabadha qaraabo dhow aan marka la keenay su'aalo lagu weydiinaa Soomaalida maxkamada waligood ma tagin maxkamad ma yaqaaneen su'aalo lagu weydiinaa waxa kamid ah waxyaalaha adii naftaada qoseeya waa yes or no question gabadha waxa la yiraahdaa su'aashan yes or no waaye haddii diintaada ku dhinto ama wax ku dhinta kuulama dalnihin ka jawaab aniga turjumaanka qofku wuxuu yiraahdaa waa la duubayo hadii qof kale la dhageysiinayo waana runta u sheegta gabadha waxa la yiri adiga wax ingiriiska la prostitution ma lagu qabtaa leeyahay ama ticket ma lagu siiyay gabadha qaraabada soo dhaweeyeen see ku diin kartaa su'aashaas gabadha waxaan yiri adoo jirkaaga ganacsanay waligaa ma lagu qabto maxaa jirkaaga adoo ganacsanay su'aal jawaabtii ugu dambeysay waxay wariyur baa koriyo daqayo waraadani maxay caynaysaa ninkan bas marka waxyaalahaas oo kala waxaan iska daay ilaa 3,000 2,000 meelaas bay soo gali jiray bil kasta badina ma ka tag waa iska daay wariyur sidii lagu yiraahdo ka xarar yur baa koriyo daqayo anaga Soomaalida yes no ina tiraado waa la socotaa Bill Clinton madaxweyne Maraykanka waagii naag qabsaday Congress Bill Clinton la wadiinay waa la socotaa marka dadkan maxkamadaha ma yaqaanin uma bisla waxyaalo badan oo maxaa jira ma taqaanaa dadka inay bartaan u baahan yihiin agartay waxa kaloo jiraan rabin wax ka weydiiyo intii uu ninkii odayga ahaa hadda xukunka ka degay Maraykanka madaxweynihii hore Donald Trump uu xilka hayay wax joogo ka samaysay ma jiraan waalidiisii iyo dhibaatada dadku u geysanay waxa badan baa ka sameeyay Donald Trump clipyada ku jirta meel kasta ku jirta Donald Trump maalin wuxuu yiri Soomaaliya waa wadan booliis lahayn waa wadan waxba lahayn waa wadan taqaanaa khasaaray asagii baa ilaahay ku soo wareejiyo Twitterka laga xiray wax kasta laga xiray marka Donald Trump waxyaalo badan ka sameeyay dadka clipka fiirsadana way arkeen aragnay masha Allah si fiican aragnay waa gartay mararka qaarkood waxaad kaftan ka samaysaa siyaasiyiinta Soomaalida iyo gobolada iyo say xaaladdu tahay adoo doonaya dadka inaad ku wacyigeliso baraarujisid maxaa ka mid ah jooga ka samaysay waxa waaye cabdi horta siyaasadda hadaa gashid ama nin siyaasi waraya gashid Soomaalidu qabyaalada ku gurgaysaa Soomaalidu marka anigu ma jecleen inaan siyaasiyiinta wax ka sheego wadaadada horta wax laga sheegi karo waa diiniya hablahana wax laga sheego laakiin maamul goboleedyada wax badan baan ka sheegay oo jooga hadda koor waxaan yiri hadda maalin dhaweeyay kaliban galiyay
ninkii Donald Trump baa waxay mataqaanaa uu ku weeraray meeshuu degan yahay Maraykankii wax kasta laga xiray muuse bixi wuxuu yiri muusow mataqaanaa ma imaan kara Hargeysa wala salaam muuse wuxuu yiri kula meeraystaade kala daa odaga wuxuu waxay mataqaanaa qorqor ay qorqor buu waxay qorqor ma ayax baa ka cunaa ayax marta ay waxa kala ma hayne wuxuu kala waxay wuxuu kala waxay ha farmaajo wuxuu yiri ana tahay haystaayo mataqaanaa villa Soomaaliya kama baxabo odaga Axmedow wuxuu yiri farmaajo marka hore qabo kabacdi heshiinayna marka ay هذا كورن waxaa ka sameeyay waagi Umar Abdirashiid oo ahaa prime ministerka wala socotay waagaas qarax iska badnaa sax waay marka waxaan Hargeysana dhacday ninkii gudoomiyaha ku-xigeenka ku isfeeray hadda koor sax markaasna Silaaya madaxweynaha waxaan gudoomiyaha ku-xigeenka halba loo dhiban nagaad baa laga dhigaa sababtoo ah tabriisa too old Silaaya tabaro ah ta kale waxaan mataqaanaa galmudug hadduu ka dhaco mataqaanaa baarlamaanka dagaal ka dhaco kulli aagi dabalaab jaakadaha ku wataa baabaha la iska dhigaya AK47 xamarna waa aragtay baarlamaan ku jira inta la laakaayeen Puntland maxaa ka tirayada Puntland toorey kulli Cabdiweli laba toorey wato toorey amar la iskaga dhigaya xamarna waa aragtay nimankii burburnaad suusaad festa waa xiran baa waa qarxinaya kulligood waa gartay marka wali goofur kalbeed Hirshabeelle ma Hirshabeelle waa dad horta daacad iska masaakiin beeraley waay rooshadan malahan beeraley waay kala rabsho jirta waa iska beeraleyna dagaal iyo rabsho kuma jiraan ay marka waxa waaye maamul goboleeda taas aan uga baxa marka Cabdi Allah ku karameeyo waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxaad hadda waayahan soo wadaa Ramadaantii baa soo dhow ciid baa ku xigta dadku waa farxayaan cibaadada marka laga baxo inkastoo cibaadada mar walba in la joogteeyo ay daruuri tahay maxaad soo wadaa gobolada ma tegaysaa corona hadduu baxo Ingiriiska ma imaanaysaa xaaladaadu waa see Cabdi horta waxaan ku tala jiraa haddii coronadan ilaahayna dhaafiyo run ahaantiin ummad badan oo saaxiibadaya ayaa jeclahay inaan u ducayno ilaa u naxariisto jannadana geeyo dad badan asxaabtayda oo class 77 baan high school ka baxay baa coronavirus oo ku dhintay marka maanta Cabdi Wali soo sheegay nin aan saaxiib aad kala u sahayn oo Hargeysa ku dhintay oo chief la yiraahdo ilaahay u naxariisto gabar kale waxay ku dhimatay Ingiriis ama taqaana Nairobi marka coronadan ummadii walaas ilaahay inta dhimatayna ha u naxariisto inta kale ilaahay ka badbaadiyo laakiin haddii naga dhamaato waxaan ku tala jiraa Ingiriiska inaan imaado Soomaaliya inaan tago inaan Xamar tago Burco tago Hargeysa tago Boorama tago Garowe tago Boosaaso tago joog yar baan ka sameeyay baan dhigay qardho waxba iga soo dhaxgala marka wax kasta wado Soomaaliya waxay ku xaman jirtay Burco la isdhagaxyeeyaa oo la tuuraya waa la socotaa adiga hadda waxaa bilaabatay odayaasha da'dooda aniga waaweyn Garowe habeenkii inay guryaha tuuriyayaan maxay qardho weeray qaadaan dhagax ma oday weyn oo waxaa arkaysaa mara faraqa dhagaxyo ku wata wareer qardho tuuriyada dadka daayay sababtu waa maxay waxa waaye saaxiibkiisu inuu habeenka jibtu diidaya guriga markaas soo maro Cabdi baa meeshan degan laba dhagax baa u gelinaya patrusar ayda waagabti gabadii aan ku sii soconaa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Maraykanka iyo Canada waxaa ku badan furiinka faraha badan oo Soomaalida dhexdeeda wax jooga ma ka samayso wacyigelina wallahi wax joogan ka sameeyay wacyigelina furitaanku waa batay waana topic aad u weyn waana loo baahan yahay in laga hadlo sababta anigu 85% waxaan saarayaa nimanka niman badanna way ugu kaceen waxa waaye hooyooyinka run ahaantii horta labada dhinac Donald Trump ku yiri both sides blame marka baleemka labada waa jira laakiin waxa u badan nimanka ilmihii bay ku dayaceen Soomaaliya lama joogo odayaashu waa iska reebi jireen saaxiibkiis iska ay jiray turba ay jiray shacab ay
meeshaan maraykan waayo cunugaaga bannaanka ma istaagi karo daqiiqad ama ingiriis ku aragto marka hooyooyinka in la kaalmeeyo soo shaqeey adaa ninkii xoola keen laakiin shaqadii guriga la qabo hooyadii marka waxa waaye niman badan isku waraagaa jira niman faataadhuglayaala oo sixroolayaala waa ku soo bateen maraykanka marka waxa waaye nimankaas naftoodu waxay sameeyaan familka isku dirayaan marka dadku diinta inay ka tagaan baaba u malaysaabo waxay ku leeyihin ninka iisoo fariisi hadda ka hor midaan sheego kale ninka iisoo fariisi tiri biyu wax ugu akriyey raashinka ugu darbu yiri gabadhi musqushay geli weyse xaliima fura albaabka maantu maanbu ku raac markii dambe waxay tiri war ninkaaga dhaqaaji war maya 2 sano saan ahaanaysaa kulaa marka waxaasna inay ka tanasulaan marka laakiin mostly nimankaa qaldan waa gartay kelimada u dambaysa waxaan jeclayaa ku siiyo maxaa kusoo gabagabeynaya allah ku ciseeye waxaan kusoo gabagabeynaya horta soomaalida meel kastay joogto in cudur baan haysta cudurkan haystana waxa weeye waa qabyaaladuna waxa weeye waa kansar kansarna haddii la gooyaa meel kale ka soo baxaa marka waxaan leeyahay soomaalida war hal ummad baan nahay mataqaanaa hal dad baan nahay waddankeena waa burburay qurbahan aan joognana faa'iido nooma leh inaan qabyaaladda waxa ka dhigno oon isku duubnaano awlaadeenna aniga gruubkayga horta waa shubaya gruubkayga dambe waa shubaysiin kullu nafsu daaqatul mawt laakiin waxa weeye carruurta yaryarka oo dhalan doonta inaan badbaadino inaan waxyaalo fiican u sheegno ummadeenna mataqaanaa inaan waddan leenahay inaan dal leenahay marka nimankaan mataqaanaa carabta iyo waddamada ajnabigaana ilaahay naga qabto ayagaa naqasaayo soomaalida isma nabeen runtii haddaa rabtid laakiin waxoogaa yaro interest oo nin walba tiisa ayaa nugu jirta taasna allahu yaclam meela la tegaysid ma lahan marka taasaan kusoo gabanaya midda kale waxaan leeyahay joog badan baa soo socda nala socda xageeda dadka aan la soconna youtube channel shidan leedahay xagee kaala soo xidhiidaya waxay laga socon karaan calimataan true story haddii geliyaan youtube waa arkayaan asxaabta waa maqlaysaan calimataan true story sida roob gu'yo da'ayo kale ugu yaaca fadlan una sheega odaygii cabdixafiid ahaa iyo isagana ay soo fariisteen subscribe channelkiisa dhaha gambalaalka furta markay saxamadda iyo siyaasadda iyo buuqa iyo qabyaaladda ay kaa bataan macluumaad wanaagsan qosol kaftan iyo wacyigelin baa ugu tegaysaa iyo ninkaa odayga khiyaarka waa gartay gabagabadii waxaan jeclahay inaan mahad celiyo wariye cabdifataax cali shirooc oo barnaamijkan idiin soo saaray idiin farsameynayay wariye deeq darajo iyo xogmaal media dadka ka shaqeeya oo dhan iyo dhammaan dadka daawada fadlan ku xirnaada si weyn ugu xirnaada insha allahu tacaala weli waxaan sidoo kale mahad celiyo saadaad iyo muxidiin oo ayagu laftigooda la jooga mataan haddadaan aan idinla hadlayo anigoo cabdixafiid idinla socodsiinaya saaxiib lagaama dhargaayo ilaahay ha ku xifdiyo waa ku mahad celinaya 100% guulayso dib ayaanu kasoo wada xiriiri doonaa haddii ilaahay yidhaahdo